بسم الله سعديو ثانك يو وان بنان بحنا adiga dagaal i banaan baxno ma yara ma arkin ama dhamaan waa in salaamay nin walba mansabkiisa magaciisa ku salaama wasiirada iyo xildhibaanada meesha ku jira horta waxa waaya tijaabana lagu hayaa tijaabadana lagu hayaa waxay tahay qofka markii la tijaabinayo oo la dagaalanka jiritaanka wadanka markii la dagaalayo bariga iyo badda laga dagaalaa dad badan oo opinionkeeda meeshan ka dhageystay really waxay tusaysaa in Soomaali hadda qiirada hayso. We don't want to act emotionally. Horta go'aanka aan qaadanayna mid oo laablaka inuusan noqonin oo dawlad iyo dadba aan dhiirigelin yanagoo dhiiran aan horta dagaalkan aan galayno maxaan miro dhalkiisa maxay tahay dawladda marka waxa la rabaa khudbadii maanta golaha baarlamaanada senators house ki iskugu darsama iskugu tagayna waxay tahay wadamada caalamka hadda jira qofkii taaka dhulkiisa isku day inuu dhulka qaato ama dad ku soo gala inuu dhul asaga lahayn uu qaato Ethiopia dollar waxayna tustay few weeks ago intaysan ay la saxiixin contractadan Muuse Biixi dawladtusayna tustay oo ah inay badda Soomaaliya u soo socdo. Almost it was trending for 3 weeks in ay badda Soomaaliya u soo socdaan ay rabaan inay Soomaali baddeeda ay yimaadaan wixii waa sahlanay anagana ma dhihin these guys are serious. Mid hadda jirta waxay tahay diyaarad la cuna qabateeyo iyo sheeg boycotting diyaarad lagu suubiyo iyo safiir loo yeer is not the issue. qafa ka dhawaajiyo dhahay madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaa badan inuu Soomaaliland ka dego aniga idea raxmahan aan qabo waxay tahay inuu madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaa badan madaxweyne Muuse Biixi uu amar degdeg u siiyay because he is part of Somalia wili hadda Somaliland iyo Soomaali meel ku kala go'day oo la leeyahay 100% ee Somaliland iyo Soomaali waa kala tahay mid jirto marka waxaan qabaa on raa'yigayga uu yahay si degdeg in loo saamoon garay madaxweynaha Somaliland loona sheego in Soomaali leedahay inuu Ethiopia uusan siin karin. That's my opinion waana ka baxay. هذا ما سنتا وزير وانس